maamulka degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta magaalada Jowhar waxa ay ka daahfureen barnaamij olole nadaafadeed laga hirgelin doono afarta xaafadood ee degmadaas. Ibrahim Ali Nuur ayaa warkaasi soo diray. barnaamijkan ololaha nadaafad magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ah mid ka dhaqan gali doona dhammaan afarta xaafadood ee degmada Jowhar waxaana daafurka barnaamij ka soo qayb galay maamulka degmada Jowhar iyo bulshada qaybadeeda kala duwan ee ku dhaqan caasimadda Hirshabelle ee Jowhar waxa ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Fartuun Aadan Xeefu عاصمة الدجمة جوهر هيرشبيل عاصمة وطهي قبل كشبيل هذا عاصمة وطهي عاصمة مرة بإني نقطة مال بلعي الآدي وقروح بدن تهي وسجيد شيء يرت ومهم مركز ذلك هنا تسي ودان ودبر كاد حرتان أنا جنا وحنا هاي قربيه نوان إذا شقينا إن شقدر إذا كإذا تلا قدوميها الدجمة جوهر أو مركز تكوه ولن إنه دت كان هرمريور ونقوم عاد علينا ودنا ما تسنتهن دمان هنا على الدخل مقالة الدجمة جوهر صالح مودع علي يادر دار وجدي bulshada ku nool caasimadda Hirshabelle ee Jowhar waxaana kula dardaarmay in ay ku dadaalaan sidii ay kaga shaqeyn lahaayeen nadaafadda waxaan leeyahay haweenkow idinka ayaa idinlaga rabaa inaad nadaafadda aad wax uga qabataan si aad ogtihiin dadku waxay yiraahdaan dumaashideeyanka labis hal xaqo dumaashideeyanka hal xaqo taas maxay noqonaysaa marka in guriga galaash iyo qaybta dambe uusan xaqneen waxaan leeyahay hal dadaalo dhinac walba guriga laga xaaqo idinkana shaqada aad qabanaysaan aad ayaan ugu faraxsanahay weligay haddana aad ayaan ugu faraxsanahay wax qabadkiina qiimaha badnaayna waxa la rabaa inaad joogto ka dhigtaan ugu dambeyn waxa barnaamijka si rasmi ah u daafuray gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baari iskaashiga aan sameeynay hay'adaha kala duwan iyo anaga midnimo iyo macallimiinta IOM UN Habitat iyo UNDP iyo maamul goboleedka Hirshabelle si loo hormariyo nadaafadda magaalada runaantii waxa magaciisa in muddo ahba aan ku soo dhibaatoonayni oo ma haweenkeena ugu dhibaatoonayeen iyagoo wax dhiirigelin ah ku haysanin mustawacnimo ay ku joogeen ay ku shaqeynayeen waxa maanta ah ama aan ka mahad celinaa إن الله أقلاضي بلاو في عن قدامي يقول على قادي وبالو قبل قبل كأكو قارجو إبراهيم على نور يونيفرسال عاصمة Hirshabelle Jowhar بعد سند إبراهيم halka daawada lagala socota Allah waa Universal TV studio-yaha ku leenahay magaalada Hargeysa warka caalamka ayaa si toos ah ugu soo gudbinaya balse imika hormuud ADSL Plus waa adeeg